halkani waa magaalo xeebadka Cape Town oo malaayiin dad ay ku nool yihiin gaar ahaan qaybtan faras magaalaha ah oo ah qaybaha ilqabadka leh ee dadka dalxiisayaasha badana ay yimaadaan waxa sanadkan dadka dalxiiska u yimid kamid ah qoysas Soomaaliya oo dibadaha qaybaha kala duwan ee qurbahana ka yimid iyo qoys Soomaaliya oo sheegay inay magaalada Muqdisho si toos ah uga yimaadeen si ay xilliyada fasaxa ee sanadka cusub ee dalxiiska ay uga qayb qaataan oo ay Cape Town markii ugu horeysay ay yimaadeen ay tahay waxaana la sheegaa Cape Town tan aan ku noolahay muddo ka badan 10 sano in Soomaaliga ugu horeeyay ee soo gaara uu yimid 1972 oo la ii sheegay inuu ahaa askari kamid ahaan jiray waagii hore askartii